حلقة ugu horeysa ee aan rabno inaan ku furano barnaamijkan waxaa noo soo jeedinaya Sheikh Ahmed Suufi Sheikh Ahmed Yusuf Ariif oo nooga yimid magaalada Columbus Ohio ayaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka Sheikh Ahmed falyatafadal mashkuuran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله تعالى ولا يلسد أدكم أغليسين با موعدة إنه waxay ku saabsantaa ugu horeysa cilmiga fadliga uu leeyahay. maxaa yeelay fadliga uu leeyahay haddii aad ogaato arrintaasi waxay kugu diraysaa ay baacid u noqonaysaa inaad raadsato. maxaa yeelay waxa qaaliga waa la raadsadaa, aad baana loo daydayaa. marka waxaana lagu raadiyaa inaad garanaysa inay qaali yihiin, haddii kale kaaba ma maqno garan maysid. marka waxaa weeye muhiimaddu inaan ogaanno fadiilada uu leeyahay. imaamuna shaafici raximahullahu tacaala wuxuu yidhi cilmi waxaa fadli ugu filan ciddii lagu sheego oo la yidhaha cilmi aad leedahay walow fii xaqiirinba ha ahaatee way ku farxaysaa. ciddii jahli lagu sifeeyana hadday doonta jaahil ha ahaatee ma oggola in jaahilnimo lagu sheego. marka sharaf intaasaa ugu filanoo qof walibaaba wuxuu rabaa inuu cilmi isaga sifeysnaado, sidaasuu jecel yahay. laakiin iska jacayl kuma yimaade wuxuu u baahan yahay raadin iyo waqti u hurid iyo dad ahal u ah ee iyagu waqti ku bixiyey in loogu tago, sidaasuu u baahan yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadaha qur-aanka ayuu in badan ku sheegay cilmiga fadliga uu leeyahay. ambiyadiisa ayuu ku mannadeystay oo uu ku ammaanay, kuna mannadeystay oo ku galladeystay. nebiyaashiisa in ka mid ah wuxuu yidhi cilmi i weydiista. aayadaha qur-aankay ku xusan yihiin, axaadiidtana in dowrahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uga hadlay muhiimadda cilmigu uu leeyahay. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala la caabudaaba waxaa ka horaysa horta cilmi inaad u lahaato sida alle subxaanahu wa tacaala loo caabudo iyo alle subxaanahu wa tacaalaaba. alla wuxuu yidhi subxaanahu faclam annahu laa ilaaha ila allah. waxaad ogaataa oo aad ku cilmi lahaataa alle subxaanahu wa tacaala cid aan ahayn oo allah inaysan jirin. allaha waaxidka ahoo jira waa allah subxaanahu. sidaas ogow baa la yidhi. cid waliba ayay qusaynaysaa inay saa u ogaato, kadib ayaa cibaada ka ansaxaysaa iyo alle subxaanahu wa tacaala loo dhowaado. markaan idhaahna cilmi markaan idhaahno waad iska garan kartaa wuxuu ku dhacayaa cilmiga alle subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado. maxaa yeelay waxa naloo abuuray baa waxay yihiin cibaadada alle subxaanahu wa tacaala. cibaadaanna la ka rabaa, cibaadadaasina ansixi maysa cilmi haddaan lalahayn. marka waa cid walba inay cilmi lahaato. waa sidaas. jahliga ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan oo aayadaha ku canaantay jahliga xumaantiisa oo alla noo sheegay subxaanahu. jaahil wax kasta isagaa ka xuna ka shar badan, xataa maska dadka qaniina jaahilaa ka liita. maxaa yeelay maskaas waxaa laga yaabaa qof inuu meel ku qaniina amba la arkay la iska dilo, laakiin jaahilkaa ummadda ku dhex jira isagaa ummadda dhan baabi'inaya oo naf iyo maal iyo nood iyo taye iyo tabarba isagaa ka baabi'inaya oo ka dilaya jaahilkaas. ilaahi subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahy ina shara adawaabi cinda allahi sumu lbukmu aladiina laa yacqiluun. wax dhulka ku socda waxaa ugu shar badan alla agtiisa kuwa dhegahalla oo indhahalla
وحبا أن أغين معناها دقها والليهين لكن علمي بيسنكم مغلين وكفائدي سنين وح أطرة عندها كذلك علمي يسنكم فيرين وح أطرة مركا بحول الله سبحانه وتعالى وح كستابا كواسا وشربضا محايلة دقها هي عندها waxa culumta lagu qaato aalada culumta lagu qaato waa iyaga qofku markuu dhagaleeyahay cilmigii wuu maqlayaa indhama uu leeyahay waa ku fiirinayaa marka haday sidaa noqdeen juhalo ay ugu sharbateen ay sii socota meesha ugu xune wax lagu ciqaaba iyagana Allah subhanahu wa ta'ala ku abaaliyay wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala wala qad dara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها وحانو أبو نور الله سبحانه وتعالى نار جهنم وحبضا وجني إنسيا قلبيال أي وحكو قرطان ملها قلبيال واقبا لكن وحبكم ما فهمان إن دي اللي هنا وحبكم ما أركان دي اللي هنا وحبكم ما مغلان عور الله سبحانه وتعالى كالأنعام بل هم أضل سبيلا كواس حولها الله داقصدو وكسي دمد بدن يهينو wax ay og yihiin lama arko waa ka sii daran yihiinoo xooluhu iyaga nooc ilaahay leeyihiin waxyaabaha dhiba iyo ay uga leexdaan xirada loo soo hooyana in badan waa yimaadaan haddaysan si kale u amban waad aragtaa marka waxaas juhalada laakiin waxaan xayawaan ka suuraabin baa ka suuraabo xataa xayawaanka ragiisu xataa isuma tagaan laakiin juhaladii labkeedii baa israadinayo waa la ogyahay dhibaatada haysata waxa soo dhanne jahli baa aasaas u ah isaga bays u ah isaga kalifayo sabab u ah hadii ay jahliga ka bixi lahaayeen oo cilmi ay ku sifoobi lahaayeen waxaas xunxunka hoo dhan waa ka hufnaa lahaayeen maxaa yeelay cilmiga laftirkiisa lagu sifaabo naafica ayaa waxa soo dhan hufaayaba ilaahay subhanahu wa ta'ala isagaas ayuu umada ku badbaadinayaa way cilmiga waxa la yiraahdaa markii aan ka kalima ahaantiisa ku noqdo shayga xaqiiqadiisa aad ogaataa la yiraahdaa shaygaas waxa uu yahay inaad ogaato marka waa laba nooc ogaashada shayga la ogaado midna waa shayga daatadiisaas iyo xaqiiqadiisaas in la ogaado midna waa shayga wax lagu xukumo uu leeyahay in la ogaado amba wax loo diido oo uusan lahayn ee laga reebay inaad ogaato waxa cilmi la yiraahdaa ilaahi subhanahu wa ta'ala mu'miniinta wuxuu faray hatta jihaad xaqa inaysan wada aadin oo qaar kamida ay joogan si ay diinta u bartaan oo ay diinta u fahmaan marka muhiimadaas ay diinta barashada leedahay waad garanaysaa وعور الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ضائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم مؤمنين وما بنور الله سبحانه وتعالى إن ضمان ببحان هدي قلب بحله هيدي أو قلب كستابا أو قلب أي كبحله هيد kuwa kalena ay joogan si ay diinta u fahmaan sidaas u wanaagsan Allah idbuur waa la isfaraya waa inay saayeelaan way sidaas marka muuminiinta laga dalbaday oo xataa hadii ay u suura gali weysay dadkii walaalaha ahaa inay xataa gibigood ay wax bartaan Allah taad bixinahay laakiin anigu waan qaybinayaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam kuwa qaybtaas qaato oo Allah na garatay Allah naga dhigo subhanahu wa ta'ala ilaahi baan ka bareynaa waaba kuma ahane isla aadaan waa inay isbedelaano sida saxaabada rasuulka ay yeeli jireen oo midkan gilinka hore cilmiga loo diro si uu soo faa'iideysto kan kalena la bedelay gilinka dambe waada amba ma ahane laba maalin ay u qaybsadaan ee kan uu shila soo faa'iideysto midkan kale uu faa'iideeyo kan wuxuu maanta faa'iideysto kan kale uu bari u faa'iideeyo laakiin waxa kan iska socoshada oo diintii aan loo dhag jalaqsiinayn haddana la rabo in la fahmee la ogaadee laga warbixiyo waa dhibaatada haysata weeye ummadaha islaamka ah ama laga yaabo dadkii wax kale inay ku tacbiitiir beelaano
wax aan cilmigan aan ahayn nacfiga leh ay maantoo dhan iska wataan oo lagu yiraahdo 25 sano iyo 30 sano waxbarasho ku mashquulsanaa haddana sida loo qaato uusan garanayn salaadu soo uga ansaxdana garan maayo yiraantiisii iyo ilaa sanadiisa soddonaadna wax kala ma qabsan wuxun buu qoraayo waxay yihiin maxay yihiin hadda waxaas sida alla loogu dhawaadana lama yaqaan hadday sidaa wixii kugu noqdaan waxay noqonayaan qayb lugooyaha oo iyaga laftirkoodaba daaquudaho alla subxaanahu wa tacaala qurbigiisa kaa fogeeyey waxa laala iyo wixii qurbiga alla subxaanahu wa tacaala kaa fogeeyey kaa mashquuliyana iyaga laftirkooda waxay kugu noqonayaan shaydaan makhluuqa allah abuuray waxaa u fadli badan nabigeena maxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi alla subxaanahu wa tacaalaana wuxuu faray ilaahay subxaanahu wa tacaalaana wuxuu faray cilmi inuu rabbigiisa weydiisto waxaa lagu yidhi oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay nebi moxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi waqul rabbi zidnii cilmaa waxaad tidhaahdaa ha layidhi nebi moxamedow cilmi ii kordhi ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa midka ugu jeclaa wey waa midka ugu fadliga badnaa wixii uu u qalmay inuu heesto oo uu ku sifaabo baa la yidhi i weydiiso waana cilmi wax kale ma ahan waad garan kartaa marka qiimaha uu leeyahay waad garan kartaa sidaa hadday tahay waxaa la rabaa marka in juhdi badan la geliyo oo lagu dadaalo dadka in wax la baro haddii dadka wax la baro iyo qofkaas ummadduna way ka badbaadaysaa naftiisuna way badbaadaysaa laakiin haddii aan waxba la barin oo uusan qofkaas waxba garanayn naftiisiina dhib adduunyo iyo mid aakhiraba way qabtaa ummaddii kalena iyagana dhib ka dayn maayo waa uun dhibayaa weeye haddaba waataan sheegaynoo aan lahayn isagaaba ugu shar badanba jaahil waxa carrada dusheeda ku socda ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta rumeeyey oo sida alla ka rabay yeelay wuxuu u ballan qaaday derajooyin ay gaarayaan derajooyinkaas iyaga laftirkooda waa la sii kala qaaday mu'miniin guud wuxuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala derajooyin baan u kor yeelayaa oo aan siinayaa mu'miniintii qayb ka sii midana waa kuwa cilmiga lehe mid kalaa la sii siinayaa baa layidhi midna waxay ku qaadanayaan iimaankii iyo mu'miniintaas ay ka mid yihiin mid kalena cilmigaas ay ku sifaabeen bay ku leeyihiin marka haddaan nin waliba adiga naftaadaa lagu raaciyey inaad ka mid naqato soo maahan hadda kuwa sida alle subxaanahu wa tacaala u abaalmarinayo wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa alla ee nebi rumeeyey iimaanka laga helay oo idinka mid ah derajooyin buu alle subxaanahu wa tacaala u kor yeelaayo allah kor yeelahayo derajooyin iyo khayr iyo siinahay waladiina uutuu lcilma darajaat kuwa cilmiga la siiyena derajooyin baa alla usii kor yeelayaa wey waa mar kale kuwaas iimaan kalena waa ku jiraan mar labaadna waxay sii leeyihiin arrin khaasa oo maamuus kale ahoo derajooyin waxaas cilmi baa lagu helaahoo lagu kasbadaa marka waxaa la rabaa in sidaas maaragtaaye juhdi wixii loo geliyo khayrkaa loo qaato adiga inaad iska qadiso mooyaane si kaloo adigu qadaysaana lama arko inaad adigu faraha kala baxdo oo cilmigii barashadiisa iyo khayrkii aad iska daydo oo wax kale aad maaragtaa ku mashquusho unbaad ku weynaysaa mooyaane markaad adigu u kacdo waad ku jirtaayoo ka bixi mayse ilaahay subxaanahu wa tacaalaana in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin ajra man camila saalixan ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddii wax fiican la timaadee muxsina waxeeda ka dayici maayo ma la duudsiinayo gefi mayso waa la siinayaa wey intaa in la eg oo aad weynaysa lama arko ilahi wuxuu yidhi subxana wa tacala wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ilaahay subxaanahu wa tacaala dulmi u saaxiib ma ahanoo addoomihiisa dulmi mahayo iyaga inay isdulmiyaan mooye ilaahay subxaanahu wa tacaala waa caadil qof walbaana khayrkeedaas ay la timiday bay leedahay waxay shar galabsatana in alla dhaafana way jiraysaa in kulley loo qabsaahe shartaas lagu qabsanaan iyagana way jirayaan wey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxdaaniyadiisa la qiro waxdaaniyada rabbi subxaanahu wa tacaala iyo alle la yaqaan markuu alle subxaanahu wa tacaala ka hadla cidda alla taqaan alla subxaanahu wa tacaala isagaa iska bilaabay
malaa'igtiisa ayuu ku xijiyey booska saddexaadna kuwa cilmiga leh ayaa ka galay oo kaalinta saddexaad galay wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala shahida allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqist ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qirayaa inuu yahay allaha waaxidka ah oo alla kale uusan jirin malaa'igtuna sidaasay iyaguna qirayaan oo ay ictiqaadinayaan oo ay og yihiin cilmiga kuwa lena iyaguna waa sidaas oo kale meeshaas jaahil nasiib kuma leh haba ka yaaraatee ka darsan maayo maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi baa lagu gartaa cid allaala ciddii ay cid ka cilmi badan tahana ilaahay subxaanahu wa tacaala khashyadiisa iyadaa ka sii qaadan ogoo kale wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala innamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaa alla waxaa un ka baqaba waxa kala baqdintoodu tixgelinba ma leh waxaa alla ka baqa uun kuwa maaragtay addoomihiisa ka mid ah culummada oo iyagaa garanaya waxa alla subxaanahu wa tacaala u cunanma oo sifaadka wanaagsan ah afcaasha suusuuban ah maxaa yeelay khashyada dhanna waxayba ku wareegaysaaba cidda laga baqaaya aqoon loo leeyahay soo maahanad cidda laga baqaaya aqoon aad u leedahay bay khashyadu ku dul soconaysaa marka cilmigii marka shu'uuntiisii waxay keenaysaa oo ka mid ah ciddii aad u cilmiga lahayday sidii looga baqi lahaa iyo sida ay tahaba inaad garanayso laakiin cilmi ma lihi soo maahan haye maxaadba ka baqdaa adiga haddii hadda qof wax belaa loo sheego oo aysan garanayno waxaa saa sidaasoo belaa saasay ka yihiin oo si kasta aad ugu caddaysay ugu girtay ugu madoobaysay maba garanaysaba soo maaha wax weynay hadda ka soo qaadaysa lama ark maxaa la aqoon la'aanta wey waa aqoon la'aanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqiddiisa aqoonsashadiisa cidda cilmiga lahaa garanaysa ciddaan cilmi lahaynna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u cunan min iyo waxbay ku sifaynaysaa markaasay bohol ku dhacaysaa ay gelaysaa haddii nafti waxaad laga yaabaa inaad aragto mid wax sheegaaya alla subxaanahu wa tacaala ka hadlaaya waxna qaldaaya naftiisaa been dherjinaysa oo ugu sheekaynaysa cilmi inuu leeyahay mana lahan maxaa yeelay xataa cidda cilmiga leh waa macduuroo hadday gafta xataa waa loo cudur daarayaa wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam mujtahid markuu ijtihaado ee asiibo laba ajir buu leeyahay markuu gafana mid buu leeyahay bal waa mujtahid xataa hadduu gafaa weli ajir uu leeyahay maxaa yeelay cilmigaas yuu ku mudaysanayaa idan cidaan cilmi lahayn baa ijtihaaday marka intay ijtihaaday bay wixiina sida ay ahaayeen u asiibtay dembi bay leedahay saasay dembi ku leedahay maxaa yeelay waa iska dhiiranaysaa oo wax aan aysan cilmi u lahayn bay faraha la gelaysaa kii hadda gafay ee lugtiis dhul daysana kaba sii daran hadda isaguna oo waa lagu dhoobayaahoo dushiisay waxaasoo dhan aroorayaan isagiina marka xataa cilmigii sidaas ayuu khayrka u leeyahay ummadihiina waxaad mooddaa inay iska sii jeedinayaan maxaa yeele waqti buu u baahan yahay juhdi buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay sidoo kale qaadasho dadka ahalka u ah laga qaato waxaasoo dhanna waqti bay rabaan haddii aan axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam qayb ka mida u dhaadhaco hadda marka lagu leeyahay cilmi wixii la bara lahaa laftirkoodii la sheegay u baahan yihiin sidii lagu bara lahaa la sheegay u baahan yihiin ciddii loo aadi lahaa la sheegay u baahanta wax saacada iyo daqiiqada iyo maalmo iyo sanadooyin xataa lagu sheegi kara ma ahan inuun cid walba ay sideedaa kale waqti u gelisa mooye laakiin xoogaa baa laysu iftiininayaa oo iliilin yaroo aad sii qaadi lahayd baa wax yardaaha uun saa looga faydayaa mooyaane ma ahan in wax walba halkaa lagugu sheegi karo intaa yartaa aad ku dhergaysa ma aha teeda kalena maalmahan dambe waxaa soo baxa canjallada iyo xoogaa maaragtaa naftu ay isku madadaalinaysa iyo mawcido yaroo meel laga dhegaysta iyo taasna hadda maaragtaa iyadu cilmi ku dherjiye ma noqonayso waad aragteen waxyaabaha laga dhaxlayba cilmi inta loo moodaybaa hadda maanta tiishkii ubba laga dhiganaya lagu injistinjoodo iyo waxyaaba ka sii daran mucaawiya waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canh wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiini ciddii alle subxaanahu wa tacaala khayr la doona diinka ayuu fahamsiiyaahoo fiqhi buu yeeshaa haddaadba aragtaba fiqhi cid haysata waa khayr la dooniddii calaamaddeedii wey waa khayr baa lala doonay khayr baa lala doonay maxaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam
wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa iskana dhihi maayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee waa waxi loo waxyoodaye ciddii alla subxaanahu wa tacaala khayr la doona buu haddii alla khayr kula maago diinkiisuu ku garadsiinayaayo diintaad fahmaysaa hadda waxaa la yidhaha wabididdihaa tatamayazu lashyaa'u shar haddii lagula doonana diinta fahamkeedaad weynaysaayo faham la'aan baad noqonaysaa baad dhinaca kale ka qaadanaysaa iyadana shar haddii lagula maagana fahamkaa kaa tegaayo waa kaasoo faham la'aan baad noqonaysaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wainnamaa ana qaasim anigu mid wax qaybinaya baan aha buu waa qaybinayaa buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cilmigii baan qaybinayaa wallaahu caza wajalla yucdii ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa bixinayaa cilmigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu bixinayaa oo tabliiq baa la faray iyo cilmiga inuu ummadda u sheego ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa siinayaa buu yidhioo fahamkaa alla bixinaya wallaahu tacaala yucdi alfahma fi اlcilmi bimabnaahu wاltafakuri fii macnaahu wاlcamali bimuqtadaahu taa ilaahay subxaanahu wa tacaala baa bixinaya cilmigii fahamkii daqiiqa ahaa iyo istimbaadaadkii iyo mabnaha iyo tarkiibka la garto iyo macnihiisa lagu fikeree laga qaato intaasoo mas'ale meel walba laga qaato iyo cilmigii wixii uu dalbanahayey iyo muujibkiisii la mudaabaqeeyo lagu camal falo hadda waa alle subxaanahu wa tacaala taa hidaaya u rabbi subxaanahu wa tacaala ha nagu arsuqo marka waa sidaasoo waa tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu badan yahaa mid isaga laftirkiisa wixii la gaarsiiyey oo ka weelayn badan awcaa min saamicin kii dhegaystay mid baa mid wax u sheegahaya aayad buu u macnaynayaa midkaan aayadda micnaynahay wax uusan ka garanayn baa midkaan hadda loo micneeyoo 10 iyo 20 jibaaraya allah isaga isla markii ka fahamsiinaya bixintaas allah iskale subxaanahu wa tacaala bixintaas rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa leh ilaahay baa la weydiistaa subxaanahu marka fiqigan la sheegayo oo cilmiga la fahmaana hadda fiqi markii la yidhahdaa ciddii markaas iyada qaadato ee sifadaa iskalena faqiih baa la yidhaahdaa faqiiha lagu sheegaayana ma aha kutubo waaweyn kaliya in la dul maray ma ahan ee layska socdo oo waxa weeye zuhdi adduunyadan lagu zuhdiya baa fiqiga ah iyo aakhira la dalbo lagu dalbo aakhirada basiira amarka diinka lagu dheehan yahay cibaadada rabbi subxaanahu wa tacaala la daa'imo maxaa yeele taa waxaa xoojinaysa riwaayad oo ibnu mascuud uu wariyey oo abuu nucaym fi lxilya uu ku wariyo iyadu kordhinaysa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiini wayulhimuhu rushda hanuun allaana ku ilhaaminaya hanuunka ku ilhaaminayo taa allah bixina marka haddii aad aragta mid wax yaqaana oo adiga aad mooddo kulley inuu wax garanayo wixiina ku dheelaaya fiqhi baan jirin oo waan la fahamsiin maxaa yeele haddii la fahamsiiyey waaba ku dhaqmi lahayoo waa qaadan laha maxaa yeele waxaad adigu taqaano oo aad haysato soo ma isticmaashi kaa hadda haddii cid loo dhiibo taleefonkaas ee layskaga dhiibo weligeedna aysan arag hadda oo la yidhaha waa taleefon ay taleefona'aantiisa u garato mayay isticmaali karaysaa ma isticmaali karto waxba ka garan mayso laakiin haddii aad haysato aad wadato oo aad isticmaalayso waa taleefon haystaa tahay isticmaalkiisana haysta waan kaasaana taleefon haysta hadda mooye cidaan lagana soo wacayn iyadina aan wacayn haysasho lama yidhaahdo taas oo kale haddii marka adiga cilmigaagii aadan ku camal falaynin oo aadan muqtadihiisii iyo wixii cilmigaasi uu ku farahayay aadan la imaanayn cilmigaagu waa eber wax ka jirana lama arko waana jahli baana la yidhaahdaa kaas jahli baana la yidhaahdaa abidarda waxaa laga weri radia allahu tacaala canh wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam baan maqlay oo leh man salaka dariiqan yabtaqii fiihi cilman sahala allaahu lahu dariiqan ila aljanna qofkii waddo qaada uu ku dalbayo cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaalana jannada ayuu waddo uga sahlaaho ilaahay subxaanahu wa tacaala waa jannaynayaayo janna la gelinayaa wey wa ina almalaa'ikata latadacu ajnixatiha lidaalibi alcilmi ridan bimaa yasnac ou rasuulka calayhi salaatu wasalaam malaa'igtana garbaheeday u dejinaysaa daalibulcilmigay u dejinaysaa ka raadli ahaashe ay ka raadli tahay waxa uu samaynahay wa ina alcaalima layastakfiru lahu man fi الsamaawaati waman fi اlardi xata alxiitaanu fi اlmaa wafadlu اlcaalimi cala alcaabidi ka fadli اlqamari calaa saa'iri اlkawaakib
وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkii wadamara cilmi uu ku raadinayo ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa jannaynayaayo asbaabta jannada lagu galaa ayaa alla subxaanahu wa tacaala waafajinaya waana gelaya. malaa'igta ayaa garbaheeda u dejinaysaa la yidhi ay ka raadi tahay darteed waxaas uu samaynayo qofkaa cilmiga dalbanaya waa cilmi dalbashada. hadda waxaas caalimka waxaa u dembi dhaaf weydiinayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam samaawaadka iyo arlada waxa ku sugan xataa malayga badda biyaha ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf u weydiinayo. wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam caalimka fadligiisana wuxuu la mid yahaba markii loo fiiriyo mid iska cibaadaysanaya oo aan cilmi lahayn iyo caalim cilmi leh waxay xagga fadliga iskala mid yihiin qamarka sida uu xidigaha kale uga fadli badan yahay. waa iska cibaadaystaa cilmi ma lahan cilmi buu ku cibaadaysanayaa. waxay isu yihiin bil iyo waxay isu yihiin iyo xidigay isu yihiin bil iyo xidigay isu noqonaya miyay isu dhow yihiinad wax isu dhow maahan. wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam culammadu ambiyaday dhaxleen nebiyaashana waxa laga dhaxla waxaa weeyaan waa cilmiya ma ahan diinaarna ma dhaxal siiyaan dirhamna ma dhaxal siiyaan xoolo lagama dhaxlo oo nebi maba la dhaxlaba xoolo lagamaba laga dhaxlaba. maxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi anaga nebiyaal haddaan nahay nalama dhaxlo waxaan ka tagnaa sadaqa wey. marka qofkii qaata ee cilmigaas qaata dheef weyn ayuu qaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waxoogaa yaroo adduunyo laga balaqsaday dheef lama yidhaahdee waa wax yaroo kumoodida. waxaa dheef taama ah oo rasmiya ah markaad nebiyaashii dhaxashoodii aad qaybsato oo aad qayb ka qaadatay qaybu kaa soo gaarto taasaa waxaa la yidhahdaa dhaxal. culammada bacdu waxay yidhaahdeen marka la leeyahay qamar oo la leeyahay bil iyo xidigay isu yihiin arrintaas meeshaa waxaan ka fahnay yidhaahdeen ninka caalimkaa waa inuu nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ku xirnaadaa ee dariiqa nebi moxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi uu raacaa. haddii kale khayr iyo ziyaade heli maayo cilmina heli maayo. maxaa yeelay waxaa la yidhahdaa bisha waxaa ku dhaca qorraxda iftiinkeedoo markaasay mar allaala markay toos u qaabishay u dhowaataba waxay sii kororsataa saxartiran iyo iftiin bay sii siyaadsanaysa. caalimkiina mar allaala iyo markii nebi moxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi uu ku dhow yahayba oo ku sii dhowaadaba oo dariiqiisa uu raacaba cilmigiisaa sii kordhaaya. maxaa yeele wuxuu leeyahay subxana wa tacaala waxaan ku dirnay adiga oo bashiirahaa la yidhi oo nadiira innaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiira wadaaciyan ila allaahi biidnihi wa siraajan muniira adigoo waxaa la yidhi maaragtaa siraaj ah. qoraxdana wuxuu yidhi alla wajacalnaa siraajan wahaaja waxaan ka dhignay mid oo aad u ifid badan. marka xaggaas magacaasay xaggaa ka wadaagsadeen. marka iyadina wixii ku dhowaada iftiin oo xisiya bay helaan. nebi moxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ciidda ku dhowaatana cilmi iyo xigma baa buuxiso oo si macnawi yahay iyaduna u dhergaysaa oo waana tii muhiimka u ahayda nafta. maxaa yeelay qofkan wuxuu ka kooban yahay isku qoofalan laba shay waa ruux iyo jasad. jasadkiisaas wuxuu nafaqaysto cabid iyo cunida unbuu ku koraa naftaan waxba uma taraan laha. maxaa yeele mar allaala iyo markiiba cunnimo fiican la helaba colays bayba dareemaysaahoo qofalkii bay qaadi weynaysaa soo maa. wax kalaa wax u tara iyada waxaa wax u tara cibaadada alle subxaanahu wa tacaala soonka iyo tahajudka iyo tasbiixda iyo khayr yaa iyada wax u taro ay ku awood lahaataa mooye waxaan kale kan unbay iyada maaragtay waxay u yihiin xoogaa qiwaam iyo hagaajin. haddii laga badiyana laftirkiisa waa dhibayaan oo dhib bay u geysanayaan. isaga laftirkiisa in laga badiyaba maahano maxaa yeelay waa sidii geedka oo kale oo geed markii biyo sidaa looga buuxiyey dhowr maalmood ku jiraan biyo la'aanna ma baxo waad garanaysaa oo ilaahay baa sida ka dhig isla markiiba waa qallalayaa waana wixii uu u baahnaa laftirkoodii. sidoo kale weeyo adigaas haddii waxa aad u baahan tahay lagaa badiyo dhaawac bay kuu geysanayaano halla obareyshimo iyo cadiin iyo xuub allaha laga qala iyo
howlahaas bay kula gaaraysaa lafteedu marka waxaa jira marka cilmigii sidaa u fadliga badan lahaa see loo bartaa marka qaabkee loo raadiyaa yani iyada laftirkeeda wax badan waxoogaa ka leen insha allah culummada shuruud bay u xidhaanoo tacallumkaas barashada cilmiga laftiisa waxay yidhaahdeen marka ugu horraysa cilmiga waa inaad alle subxaanahu wa tacaala dartiisa u baranayso oo qaybtaas isagu uu ku shaqal leeyahay hadda cilmigaan sheegayno waa cilmiga alle subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado amba kan loogu dhowaada laftirkiisa uu aala u yahay oo isagaasuu ku sharafoobayaa isku micnay noqonayaan labadooduba waxaa la rabaa qasadkaagu inuu wanaagsan yahay qasadka aad ku qaabilayso waxaa la rabaa inuu ahaado mid maaragtaayey niyo wanaagsan leh maxaa yeelay waxa lagu dhaqaaqo ee lala yimaad ee khayraadka ah cilmigu waa qaybtiisaase qayb buu ka yahay niyay u baahanta niyo wanaagsan bay u baahanta oo waa inaan la leexin oon la khaldin haddii la khaldo waxba micno yeelan maayo wuxuu rasuulku calayhi salatu wasalaam innama alacmaalu binniyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa acmaasha ansixidda ay ansaxayaan niyay ku xidhan yihiinoo niyo la'aan ma ansaxo acmaasha lala yimaaday alle loogu dhowaado subxaanahu qof kastaana waxaas uu niyeysta buu leeyahay waxaa la rabaa marka cilmiga aad tacallumaysa laftiisa oo aad baranaysa inaad maaragtaa niyada wanaagsato oo haddii xataa cilmi aala uu yahay inaad u kaalmaysato kalaamka alle inaad niyeysato iyo kalaamka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi si aad maqsuudkii u gaarto oo alle subxaanahu wa tacaala aad ugu dhowaato cilmigaas intaad barat oo aadan ula qasdin lacag aad ku samaysi iyo waa intuu ka yahay ha lagu yidhaahdee waa fiican yahay oo aqoon uu leeyahay iyo waxaas waa inaad ka hubnaatay aysan kaa gelin haddii kale waa kaa hallaabayaa cilmiga laftiisiibaa kaa xumaanaya oo niyadiibaa kaa qarribaysa maxaa yeelay wax kastaaba oo wanaagaa niyadaa kuu fiicnaynaysa kuu hagaajinaysa iyadaana kaa xumaynaysa oo kaa hallaynaysa waa middaas horta midda ugu horraysa tan labaad waxaa weeye cilmiga aad doonanayso laftirkiisa maxaa yeelay waa qaybo badan cilmigii waa xadiid waa tafsiir waa waxyaabaha la barto oo aalada sidii naxwaha iyo sarfiga oo kale iyo waxa fududeeya oo lagu gaaro waa luqadii carabiga midka adiga isla markaas dabeecaddaadu ay danaynaysay xiisaynayso oo markaad daalacanaysa aadan ku caajisayn oo amba aad akhrinayso oo naftaadu ay nashaad ka helayso oo caawo dhan ay soo jeedayso kaas waa inaad isku hormarisaa isku tuurtaa wey maxaa yeelay haddii nafta midkan kale aad ku cariiriso waxaa laga yaabaa in malaala isla markii durba kuu xasisho aad istidhaahdo war lama baran karabee maad aayar ilmahaaga isaga shaqaysatidoo haddaadan xaas lahaynna aad xaadfo waa kaasi kayrkaagii guryaha leh maad sidaa iyo sidaa yeeshid waaba dhaqaajinla lahay ee naftu ay sidaa inta kuugu sheekayso dhinac kaleba aad ka baxdaba laftaada marka midkan laakiin naftaada ay ku raaxaysanayso ay ku mashquulaysa kaasaa la rabaa inaad hormarso oo aad ku bilaabato tan saddexaad waxaa la rabaa waxa aad baranaysa marka ugu horraysa waxay yihiin iyo faa'iidada laga hela waa inaad ogto oo haddii aad maanta adiga aad iskuul iska aadayso oo lugar war maxaa barataa waxbaan bartaa maxaa lagu dheefaahay taraan ma naqaane waa uun iska xifdinaaho waa sii aadnaaho waan iska tagnaayo waan soo laaban hadda waa waxaa weye inaad ka tagtay yaa ka dhalanayso aadan melfa ku gaarin faa'iidadiisa waa inaad taqaano waxa aad sidaa darteed waatan culummadu wax la yidhaha mabaadil cashara ay u sameeyeen furuunta oo marka aad maaragtaa midkan aad baranaysaba waxa laga dheefo iyo meesha uu ka yimid iyo waxa uu yahay iyo diintu waxa ay ka qabto iyo waxaasoo dhan baa lagugu hormarinayaa si aad adigoo calaa basiiratin aad u bilaabato saasaa la rabaa marka wixii inay aadaan waxaa la rabaa oo kale tan afaraad inaad cilmigaas laftirkiisa min awal ilaa aakhir tasawuran wa tasdiiqan inaad u sugtaa la rabaa oo afraaddiisa iyo taraakiibtiisa meel alla meeshay isugu tagaan iyo mustalaxaadkiisaba aad si fiican uga dheregsanta markaasaa la rabaa inaad halkaa ka gaarto laakiin lama rabo adigoo malamaleynaayaba inaad mid kale isku tuurto haddana kii baad malamaleynaysaayo xataa aadan taraakiib badan hadday kaa hor yimaadin aadan garanayn oo isagii ka mid ah markaasaad mid kale ku boodday haddana iyadoo sidii haddana mid kale ku boodday haddana marka dambe waxay noqonaysaa iska daba wareeg iyo wareer iyo meeshii aan waxba lagala soo naqan marka sidaa lama rabo in badanna dalabada cilmiga arrimaha weeqay ka mid tahay fahamkooda iyo taana waxaa la rabaa iyadana in loo dhug lahaado oo lagu xisaabtamo
midda shanaad waxaa la rabaa waxaas aad baranaysa laftirkooda inaad haysato kutubkaa ha qabtiraysa inaad haysataa la rabaahoo iyada camimaysa oo fannigaas fusuushiisii iyo kutubtiisii oo dhan iyo qaybihiisii iyo furuucdiisii oo dhan ay u dhammaystiran yihiin laakiin lama rabo mid naaqisa inaad intaad akhrisato oo qaybo dhan ay ka maqan yihiinoo baabab dhan oo markaas adiga aad istiraado cilmigiina waad garanaysaa qaybo badanna ay xataa weli ka sii maqan yihiin waxaa la rabaa mid mustawciba inaad faraha ku dhigtee si fiican u sugto oo aadan xataa kuwo kale aadan ugu baahana isagaa laftirkiisa markaad saaxiib la naqato ay waxaagii oo dhan kuu diyaargaroobayaan tan sagaalaad maya tan lixaad waxaa weeye inaad ku dul akhriso shiikh murshida oo diinta ku camal falaaya oo naseexaynaya hagarbaxaayaa la rabaa diinta wuxuu rasuulka addiinu annasiixa diintan waa naseexo waa in laysu hagarbaxaa weeye oo qofka muslimkaa khayrka uu ku sugan yahana la yidhahdo khayrka joogtay waa ku guman tahay kordhina shartana la yidhahdo sharta ka leexo oo laysu naseexeeyo marka waxaa la rabaa shiikh murshida oo naseexaynaya inaad ku akhriso ambuu ku akhriyo oo adiga culummadu waxay dhahaan wa an laa yastabidda binafsihi wa bidakaa'ihi waa inuusan isaga daalibka naftiisa iyo caqligiisa kula laabano uusan dhihin anaaba la soo baxaaye wakhti baanba gelinaaye waxaa laga yaabaa laba sadar oo aad maalin gelisay shiikhu inuu muddo gaaban kaaga caafi lahaa wakhtigaasuna uusan kaaga lumeen waaba fahamtaba ka soo qaba laakiin ama habeen baa kaaga baxay ama maalin baa kaaga baxday aayar shiiqaa murabbiga haddaad u tegi laheedna laba kelimo umuuba inta kuu sheego kuu kala furi lahaada isku dhammaata markaasaad hawlo kale kusii qabsan lahayd habeenkaagaas iyo cibaado iyo khayraad kale maxaa yeele wakhtigu waa qaaliyo wakhtiga waa lagu xisaabtamaa in badan waxaad arkaysaa inay dhahaan wakhtigaan isku dhaafinaynaaho ama shax iyo maxay ahayd telebahashii dhagxaha ahaydoo dubnadi iyo waxyaaba caynkaas inay dadka dhahaan xoogaa wakhtigaan isku dhaafinaynaaho waaba soonkiiyo waxaan rabnaa qoraxdu inay sii gariirto aan afurno horwacaas ma ahan saas ma ahan cibaadada iyo sida rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka doonay saas ma ahan wakhtigaan qaaliga ahoo beddelka aan lahayn adduunyada waxaa u qaalisan waxaan beddelka lahayn mid tuugabaa inta yimid oo xoogaa yaro taleefon qaaliya kaa dafay waxaa leedahay qoladii aan kontarag la sii gelaaho dhib male kulley maalmahaanaan yaro shaqaynayaa bis mid kaleana iska soo qaadan doonaa laakiin nafta kugu jirta ka warran hadday baxdo ma beddel baa loo helaa waa may mid kaloo meel ku baxaysana ku sijilan miyay leedahay lala soo waa may wax ka qaalisan ma leh waad aragtaayo waa digtoonidaasay isaga jirtaahoo wax yaroo muka oo hadday aragtaba waata gacanta kusii bootinaysay isaga difaacday howlahaas mar rabto haba yaraatee saxar in la gaarsiiyo maxaa yeelay waxay og tahay beddel inaysan lahayn mid iyada lamid hadday ogaan lahayd waa yaro iska fududaysa lahayd wakhtiguna isaguna waa sidaasoo maalintaa hadda aad joogtay jumcada khayrkeeda iyo saacatulijaabadeeday la tagtay mana soo noqonayaan haddaad tiraa jamcada kalean sugaa waa uun jimco kale iyo adoo godkii usii dhowaaday godkaad geli lahayd adoo usii aayar tillaabsaday unbay noqonaysaa marka waxaa la rabaa inaad marka wakhtigaaga ku xisaabtanto oo sidaas hawshu ay ahaato rag culummaha iyagoo shiikhaas murshidka in lagu dul akhriyo tilmaamaha waxay yidhaahdeen man ya'khudu alcilma can shaykhin mushaafahatan yakun can izayqi waataxriifi fii xaram qofkii cilmiga ka qaata shiikh ka qaata mushaafaha wuxuu ka nabad galaa taxriif iyo iilashay iyo gef iyo cibaaro si khaldan loo fahmee la caqiideeyo man yakun aakhidan lilcilmi can suxufi facilmuhu cinda ahli اlcilmi kaalcadad qofka cilmiga xaanshooyin ka qaatana ahlucilmiga umaba xisaabsanoo raggii hore oo salafka ahaa waatay yidhaahdeen laa ta'khudu alxadiida can saxafiyin wala alqur'aana can musxafiy xadiidka ha ka qaadana xaanshoolo saxafiyahoo joornaaliista ahoo xaanshooyinkaas ka diriqsadayna ha ka qaadana maxaa yaele khalad buuba ku barayaayo xajaasi waa aragta rijaashan taraajimtooda dhibka badanoo aan carabi iyo ishtiqaaqna lagu kaxaynayn oo u baahan in maxay ahayd tale lagaa xalliyo qur-aankana sidoo kale nin kitaab ka bowsaday lama rabo inuu kuu macallin noqdo maxay ahayd tale idhaarkiisa iyo qunnadiisa iyo ay isku qaalaban yihiin ay qaldan yihiin waxaa la rabaa nin macallim leh oo mucallim leh tarbiyaysan oo qur-aanka si fiican xuruuftiisa looga dhisay iyo icraabkiisa iyo tajwiidka iyo dhinac walbaba inaad ka qaadato adiguna si nadiifa aad wixii u qaadato waxaa culummada bacdi ka mida uu yidhi muddaciyan cilman walaysa biqaari'in kitaaban calaa shaykhin bihi yashulu اlxasm waxay dhaheen ma cilmi baad sheeganaysaa
كتابنا الشيخ وحيابها أدك سهلة كماذا نضل آخرين أتزعم أن الذهن يوضح مشكلا بلا مخبر تالله قد كذب الذهن ما واحد سيغانيسا أذيك إن أذيك دكتادو أي مشكلات كو عضينيس إيضا عيد كو خبر تابعا لا أرك تالله قد كذب ذهنك دكتاد إيه فهم دابو بان بيكوش يغينو واقوي غياون معايا إلي وإن ابتغاء العلم دون معلم كموقد مصباح وليس له دهن مid maxay ahayd cilmi raadiyo muallim la'aana wuxuu la mid yahay nin faanuus raba inuu birsado saliidina aysan ugu jirin ma waxba u biraayad wax u biraayay lama arkay oo iftiimaay maanta dhan waa dab ku shig marka sidaas oo kale weey hawshaadu haday muallim la'aan noqoto maantana muallimkii ixtiraamkiisii iyo yaaba laga cararayaa iyo waa sheekhaygii kaliya oo wax ii faa'iideeyay baa la diidayaa markaas meelahaas la rabaa wadaad anjal duubay ee qaarna ka maqan tahay qaarna maaragtay bahashii mulaacada ay ka cuntay in wax laga malamaleeyo saas ma ahanad waad aragtay hadda dibkii ka yimido tarbiyaan jirino kii laftirkiisii waxa soo bartay baaba fawdaaho amaba la tarbiyay ma soo maahan culimadii horteed mujaalasa kuma uusan sameeynin sida la soo ixtiraamo ma uusan arag sida maxay ahayd kala diinta loo kala qaatay khayrka iyo isu naseexaynta ma arag qolkiisaas oo xoogaa ku malamaleeyay bulshaduna la dhex istaagay isagii baaba kan caayinaya intii uu khayr sheegay nabiga markuu rabo inuu ka hadlo si khaldan uga turjumaay rabbi subhanahu wa ta'ala markuu rabo inuu wax ka sheego khaldaya aqeedada qaribaay marka waxa soo dhanna waxay ka imaanayaan hogaan la'aanta ay ka imaanahay maxay yeelay lama soo sheegin maxay ahayd cid iyadu iska macallimeynaysa oo iskana ardayeynaysa isla nafteedaas marka waxa la rabaa teeda kale mashaaikhdii islaamka oo salafka ahaa iyo kuwii ka dambeeyay oo kaabir salaf marata mid kastaaba midka kale uu ka qaatay was ixtiraamayeen oo diinta isku xishmeynayeen Hamad ibn Abi Sulaiman imaamkii sheekhi Abu Hanifa sheekhiisa ahaa walaashiisa wixii tiri Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit ka taqaanaan oo imaamul azam ka ahaa imaamka weyn oo mujtahid ka ah waxay tiri xoolo loodayna uu lisi jiray bay tiri loodu noo lisi jiray guryaha markay dumaan waabaha iyo isaga dhisi jiray iyo meelaha lagu harsado reerka Abu Hanifa way sidaasa ahlul ilmiga ay dadka ilmiga u saaxiibka oo ahalka u ah oo ay ka qaadanayaan amba u qalma inay ka qaataan ay ixtiraamayeen oo ay sida u hagaajinayeen amma fawda Soomahan hadii hawshaadu ahaato waa un fawda ka fawdo iyaduna saasum bay iska ahaanaysa iyadaas mid kale un bay iska dhalaysaayo ilaahay luma jaran la isdaba qabsado aan la kala harin iyo dib marka ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiyaashiisa cilmi buu ku manadeystay cilmi buuna iyuna ku amaanay oo ku amaanay meel jahli la isugu hameliyay ma jirto lama soo sheegin wuxuu leeyahay rabbi subhanahu wa ta'ala wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إلهي سبحانه وتعالى كتابه كجدجي هي حكمة وحاذا جرنين بوكبري وهذا أهانينا جرنيس إلهي فضلي سنة دشادة وكوين هاي فضل الله بوحده معايا العد علم اللي سيء دحشي نبياشة وحقق هذا فضل الله سبحانه وتعالى واهي ستاوي سيدا ربي سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه كوير بلو فيرس نبي الله موسى مركو الله سبحانه وتعالى قال له ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما مركي أو تبرتي سجاري أو كامل نغضيبا وحان سيرني حكم إيا علم وكذلك نجي المحسنين ساسانا كوا وناقا سمي وأبالنا أذيك هدي أد وناق سميسي أو محسن آتاهي إحسان كان ولا يغانا واكي رسولك عليه الصلاة والسلام وشيغيري أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إحسان وحال لي هذا يعني رب سبحانه وتعالى أعبد أدق وأركي سأوكله هذا نركن إسقاك وأركهايا عدي إحسان كاصلت ماذا ألا وعور للذين أحسنوا الحسنى كوا إحسان كسمي جنة إليه نية وزيادة ديارات إليه رب قوضا أي أركان سيداس مركا هذا إحسانك هو عبد الله نوحو ليه هدي إلهي كبغى الله واحد برايه هدي خشية ربي إيكابه
وإلهي سبحانه وتعالى عاد كبغضه أسبابتنا الله تماضي ديارة بطهابة إلهي سبحانه وتعالى وريا سيدوك لو يقول الله سبحانه وتعالى نبي الله يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين تاصل لمت بلو فيرس وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة وحالكم من هذا سنة كتاب كي حكمة الله برا حكمة وعلينا العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح علمك النافع هي كجارسية عمل وناكسن إليه سبحانه وتعالى اللي قدوا نبي الله داود عول كله وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب نبي الله خضر محول الله سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما نبي الله موسى فتيس وحي هلان أضون مهينا كمذا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة صوم من عندنا وعلمناه من لدنا علما أكتنا عن علم كبرنا قالوا فيرس علمي aniga buuxa wiliga la isma yiraahdo waxyaabaha waan ka soo tagay xisaabaha ay ugu jirtay waqtiga gaabana cilmiga markaad xataa barato la isma yiraahdo cilmigan waa ku dhisan yahay oo mafaahiimtiisii iyo mabaanidiisii baad buuxda la isma yiraahdee mar walba waxaad ogaanaysaa inaad daalibta haddaad isku kunfusho adigu sheekh baad naqatay waxa ku imaanaya inaad waxba faa'iideysan adiga laftaada marka waxa la rabaa inaad ogaato inaad baahi qabto maxaa yeelay nabiyullaahi muusa أو العزم كمذا بيقول ليه نبي الله خذ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ما كن راعاه ها وحا ما ركتا لو براد أنه وحي قبرت هنون وحن كهنون عن خير كوجاد خير واحد يستحي وكدائم هو معناه سيدا والنبي الله موسى أنت أسقيناه أو أصعد علم سوف إيديس أديجينا مربت حواجا إناد باشا ضيرتا كعيسته المساجد كاس علماء أخبرنا هذا هو وادبات وفهم لعنوي إن شاء الله تعالى وقتي يا إسكعريني علماء بدنا وافر دايو أنا قاعد دوان إسكا جهور مريو والله السيدة في حدي إسكا هو ليسن مركا إن شاء الله تعالى مشايخ دي بوينين بايقدر مري سادي الله إنه خير بانا يسود الدار منا إن شاء الله تعالى تذكر مؤمنين تانا يسؤول حالا هنا يسود عيانه رجعنا سفر كوي إن شاء الله تعالى ودعينا وعلينا ضدك مؤمنين تاه ونعسن وقلبك ونعسهل كوي مذي إلهي سبحانه وتعالى هكوج زيه الذي سناه وقديه أهل كي مارك أولادنا الله هجاجيه نفوس الله صوبيه مال الله ماشي للجوجبة خير الله نو أوال مريو دباتوين كي محيا يتبرب لم يلا إسكت جرنا الله نقصار سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إسقى أوله صار كرا سوى البان وحوش يغني ماشي حسان لك هستان نري حقا دوا كرمنا نري الله دوا يصوم أهموية هذه اسم داوين كرت حنون كان ما يتغاني إلهي سبحانه وتعالى نشجعنا عذر كأنه يدباتنا الله سبحانه وتعالى الله نغفر هذا بجاه سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين